السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal ku soo dhawaada muuqaal cusub. Maanta waxaan doonaynaa muuqaalkeena inaan kaga warbixino sidii iyo qaabkii ay ku burburtay dawladda Islaamiga ahayd ee Cabbaasiyiinta. Sidaad ogsoontihiin, dawladda Cabbaasiyiinta waa mid ka mid ah manaabirtii waaweyneyd ee looga talin jiray Islaamka. Waana khilaafadii saddexaad ee soo marta taariikhda Islaamka. kadib dayacii iyo burburkii ku yimid dawladdii Umayyiyiinta ee Islaamka ama khilaafadii labaad ee Islaamka looga taliyo, ayaa dawladda Cabbaasiyiinta waxa yididiila iyo rajo ay u gashay in ay noqoto kana mid noqoto maamuladan u kala dambeeya Islaamka si ay u gaarsiiso message-kii ka soo gudbay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam kuna xukunto caalamka Islaamka dastuurkooda oo ah Quraanka Kariimka. Dawladda Cabbaasiyiinta waxa aasaasay oo gacan weyn ka geystay ilmo Cabbaas, waana mid ka mid ah carruurtii adeeradii ugu da'da yaraa nabigeena sallallahu alayhi wasallam, Al-Cabbaas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurayshi. Haddaba dawladda Cabbaasiyiinta si ay mansabkan u hesho una noqoto dawladdii saddexaad ee Islaamka u talisa, waxa waajib ku noqotay inay meesha ka saarto inamadii uu dhalay Umayya oo ka talin jiray ama isaga kala dambeeyay dawladdii Umayyiyiinta. waxaana ololahan oo muddo socday lagu laayay dhammaan dadkii ka soo jeeday reer Umayya ilaa in yar oo kamid ah oo gashay halka iyo Andalus. Haddaba Cabbaasiyiintu si ay u tirtiraan ilmo Umayya waxay gacan ka heleen Furus oo ahaa dad ay haybsooci jireen dawladdii Umayyiyiinta. manaasibtii ugu waaweynaadna ay ka manciyeen una diideen, waxaana manaasibtan wada qaybsaday reer Umayya oo dhammaystiran. sidoo kale waxay gacan muhiim ah ka heleen shiicadii Cabbaasiyiinta oo iyaguna ku taamayay in dawladda Umayyiyiinta meesha laga saaro lana burburiyo dhammaan kayaankeeda oo dhammaystiran. ugu dambeyntii dawladda Cabbaasiyiinta waxay ku guuleysteen in ay awoodda gacanta ku dhigaan ayna noqdaan dawladdii saddexaad ee muslimiinta u talisa. caasimadda oo markii hore ahayd Dimashq ee waddanka Shaam, waa waddanka imika aanu naqaano Suuriya, ayaa waxa loo soo raray Kuufa. halkaas ayaana caasimadda ku nagaatay. balse markii dambe ayaa dawladda Cabbaasiyiinta waxay xoog u dhistay ama dhismayaal waaweyn ka dhistay kana dhigtay magaalo aad u qurux badan, magaalada Baghdad. halkaasaana markii dambe loo raray caasimadii dawladda Cabbaasiyiinta. haddaba waxaa laga yaabaa inay isweydiino qaabkii ay ku burburtay dawladdii Islaamiga ahayd Cabbaasiyiinta. dawladdii Cabbaasiyiinta markay horumar ka gaadhay dhinac kasta ayaa waxaa ku bilaabmay kacdoono lagaga soo horjeedo. kacdoonadaasna waxay ku salaysnaayeen arrimo diimeed, waxaana shacab walba ku doodayeen inay yihiin kan koowaad, macnaha ay maamulka qayb muhiim ah ka qaataan. sidaad ogsoontihiin, Cabbaasiyiinta waxaa xukumi jiray dad cirqigoodu ay Carab yihiin, waxaana ka soo horjeestay dhammaan dadkii aan Carabta ka soo jeedin. sidaa darteed waxaa markiiba samaysmay xarakooyin ama dhaqdhaqaaqyo diimeed oo mid walba ugu yeedhayo shacabkiisa hal ku dhig iyo mabaadi' lagu qanacsan yahay. ugu dambeyntiina shacab walba wuxuu ku guuleystay inuu isagu isku maamulo. halkaas ayaa la oran karaa burburkii dawladdii Cabbaasiyiinta ayaa ka bilaabmay. waxaana taasi ku dhiirigelisay ciddii ay xulafada ka dhiganaysay dawladdii Islaamiga ahayd ee Cabbaasiyiinta inay dhabarka u sii jeediyaan, sidii aqwaamtii, dawaa'iftii iyo shiicooyinkii intaba iyo qaar kaloo badan. ugu dambeyntii dawladda Cabbaasiyiinta halkaas ayay ku burburtay sanadku markuu ahaa 1258. waqtigaas ayaa magaalada Baghdad iyo magaalooyin fara badan oo Ciraaq ka mid ah waxa soo galay ninkii la oran jiray Holaako Khan At-Tatar. isagana dhib ba'an ka geystay Baghdad, waxaana ku jiray dadkii kurta laga jarayay ee la leynayay dadkii maamulka iyo khilaafada Islaamka hayay ee Cabbaasiyiinta ah. sidaad ogsoontihiinba taariikhda aad ayay u ballaaran tahay iyo sababihii ka dambeeyay burburkii dawladda Cabbaasiyiinta. balse intaas ayaan idinku soo koobaynaa. aad baad mahadsantihiin.